maanta waxaan joogaa oon la joogaa walaashii xamda mulkiilaha buniya saloon oo ku taala magaalada arabsiyo. maanta waxa weeyaan aan safar soo galay oo aan soo booqday si aan idinka soo diyaariyo waxa weeyaan barnaamij qurux badan iyo khibraddeeda inala wadaagi doonto insha allah. waan kusoo dhaweynayaa xamda. kolley waa kaaga mahadnaqayaa sidii wanaagsaneyd ee qiimaha lahayd ee walaal ii soo dhaweysay. su-aasha kuweydiinaya koowaad waxay noqonaysaa waa maxay sababtaad u bilowday yacnihii ganacsi ama ganacsiga noocan aad u bilowday maxay tahay maxaa kugu dhaliyay? aad baan hadda ugu faraxsanahay xamse siciid maxamed cabdi aad baan ugu faraxsanahay waad ku mahadsantahay saaqnajintay noosoo siisay iyo noo soo hurtay aad baad mahadsantahay uga bixin jiro horta aniga aan aad u jeclaa bulshadana inaan uga faa'iideeyo. caqabadii ugu weyneed aad isleedahay waad la kulantay waqtigaad ganacsiga bilaabaysay sidoo kale aad isleedahay dhalinyaradu way la kulantay inta badan markay ganacsiga bilaabayaan maxaa ka mid ah? waxay ku bilaabaan iyagoon suuqa fahansaneyn, waxay ku bilaabaan dhiro. marka labada qodob baan kala dardaarmaya dhalinyarta. waxaan ka bartay walaalo inaan bulshada u adeego, waxaa kaloon ka bartay samir. waxaan kula talinaya walaalo inay yeeshaan horta calaamaday iyo dhiiranaan. waxaan kaloon kula talinayaa inay yeeshaan la taliyo ganacsi.